wacan oo wanaagsan daawadayaal habeen wanaagsan soo dhawaada qodobada aan caawa barnaamijkeena ku eegi doonana waxa kamid noqon doona ururka al-shabaab oo kaabiga ku haya sidoo kalena hareereeyay magaalada Jowhar ee xarunta maamulkaasi Hirshabelle sidoo kale maxaa ka cusub dagaalkii ka dhacay Aboorey oo waliba dawladda federaalka Soomaaliya macawisleyda iyo sidoo kale ururka al-shabaab ay wali isku hayaan iyadoo Aboorey wali ay gacanta ugu jirto ururka al-shabaab maxaa ka soo kordhay caawa sidoo kale buuraha calmiskaad ee gobolka Bari ee maamulkaasi Puntland wali Daacish ayaa weerar baan ay isku hayaan iyadoo wali Daacish ay soo qaadayso weerar baan ay ku wajahayaan ciidamada maamulkaasi Puntland qodobada iyo kuwa kale oo faahfaahsan ayaad ku maqli doontaan oo ay ka marneen dagaalkii uu dambeeyay iyo sidoo kale wararkii uu dambeeyay ee degmada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeellaha Dhexe sidoo kalena Baay Boqol sidoo iyo Daynuuna waliba iyo Baay Burjeed maxaa ka socdo aadan ogeyn qodobada iyo kuwa kale oo faahfaahsan barnaamijkeena ayaad kaga bogan doontaa ila joog sidoo kalena muuqaalka like saar channelka hadii uu subscribe ku hayna fadlan subscribe isaar sidoo kalena muuqaalka like saar share gaarsii saaxiibadaada mar kale aad iyo aad ayaad u mahadsantahay wacan daawadayaal habeen wanaagsan mar kale soo dhawaada magaalada Jowhar ee caasimada maamulka Hirshabelle waxa ka socdo dhaqdhaqaaqii ugu badnaa ee ciidamada maamulkaasi Hirshabelle kuwa dawladda federaalka Soomaaliya ay magaaladaasi ugu warhayaan sidoo kale iyagoo banaanka u baxay gabi ahaan koontarooladii magaaladaasi ku yaalan la adkeeyay sabab awgeed in ururka al-shabaab uu magaaladaasi dhankeega u soo dhaqaaqay sida ay wareedyo ku heleen maamulkaasi iyagoo sheegay in ururka al-shabaab tiradii ugu badneyd ee joogtay gobolka Shabeellaha Dhexe ay gabi ahaanba u soo ruqaansadeen dhanka iyo magaalada Jowhar ee xarunta maamulkaasi Hirshabelle iyadoo halkaasina la filayay in mar kale dagaal xoogan uu ka qarxo magaalada Jowhar sidii magaalada Balcad iyo sidoo kale Aadan Yabaal oo ururka al-shabaab dhowr mar ay soo weerareen gabi ahaan magaalada Aadan Yabaal ay ururka al-shabaab la wareegeen muddo isbuucan dhexdiisa hase ahaatee haatan wali waxa war kale oo caawa soo cusboonaaday ayaa ah in magaalada Jowhar ee xarunta maamulkaasi Hirshabelle mar kale ay ururka al-shabaab doonayaan in gabi ahaanba magaaladaasi ay la wareegeen iyagoo tiradii ugu badanaa ee ururka al-shabaab ee joogay koonfurta Soomaaliya ay ku soo qulqulayaan magaalada Jowhar ee xarunta maamulkaasi Hirshabelle ururka al-shabaab ayaa gabi ahaanba waxa ay xoog saareen in mar kale ay magaalooyinka Hirshabelle qaasatan degmooyinka ugu waaweyn sida Cadale Aadan Yabaal iyo Jowhar ay yihiin kuwa ugu fudud ee ay la wareegi karaan iyagoo sida kale dhinaca kale ciidamadii ugu badnaa halkaasi ku soo daabulaya Hiiraan iyo sidoo kale Shabeellada Hoose ay gabi ahaanba ururka al-shabaab isaga yimaadeen iyagoo ku sugan eeriyada Aadan Yabaal iyo sidoo kale magaalada Jowhar oo haatanba dadka ay maqleen in ururka al-shabaab ay ku soo wajahan yihiin cabsi ay ka qabaan dadka magaaladaasi in mar kale ururka al-shabaab iyo dawladda ay ku dul dagaalamaan sidoo kalena sidii Aadan Yabaal oo kale ay dagaalo baan halkaasi ku wajahaan ay mar kale cabsidaasi dawladda Hirshabelle oo ka jawaabaysa waxa ay bar koontaroolada magaaladaasi dhigtay caawa ciidankii ugu badnaa ee halkaasi joogo iyadoo sidoo kalena adkeysay ammaanka magaalada Jowhar ee xarunta maamulkaasi Hirshabelle ayaa gabi ahaanba waxa ay wajahaysaa dagaal culus oo ka dhanaa ururka al-shabaab iyadoo ururka al-shabaab ee dawladda federaalka Soomaaliya ay magaalooyin dhacay iyo deegaano dhaco gobolka Shabeellaha Dhexe ay dib mar kale u la wareegeen haddana ururka al-shabaab ayaa waxa ay xoog isugu geeyeen in mar kale ay sii joogaan kuna nagaadaan gobolkaasi Shabeellada Dhexe ee koonfurta Soomaaliya dhinaca kalena buuraha calmiskaad ee gobolka Bari waxa ka socda dagaal xoogan oo u dhaxeeya Daacish iyo sidoo kale maamulka Puntland ayaa wajigii saddexaad ee ku dhawaaqday dagaalka ay ururka al-shabaab Puntland ayaa ku dhawaaqday wajigii saddexaad ee la galayso weerar ama sidoo kale dagaal xoogan oo ay ugu xoreynaysa deegaanadeeda Daacish ka dagaalanta buuraha calmiskaad iyo Goolis ee maamulkaasi Puntland iyadoo wajigii koowaad iyo labaad ku guuleysatay sidoo kalena ka qabsatay deegaano dhowr ah ururka Daacish haddana mar kale Daacish ayaa weerar baan waxay ku soo qaaday maanta dagaal xoogan ciidamo fariisimo ku lahaa oo maamulka Puntland kuwaas oo ay gabi ahaanba halkaasi ku weerareen gawaari qarax iyo sidoo kale iyagoo gudaha u galay xeradaasi hase ahaatee ugu dambeyn Puntland oo gurmad ka heshay ciidamadeeda ayaa ugu dambeyn waxa ay deegaankaasi gacanta la wareegtay hase ahaatee Togmiraale iyo sidoo kale deegaano kale ee dhaca buuraha calmiskaad ee ururka ay ciidamada Puntland si iskooda ugu wareegeen iyagoo dagaal baan oo ay la galeen Daacishna uu toogroonaad sidoo kalena uu guuleystay dagaalkaasi ka dhacay buuraha calmiskaad oo ay dawladda Puntland doonaysay inay mar kale gacanteeda ku soo celiso gabi ahaanna ay ka saarto deegaanada iyo sidoo kale buuraha ay ugu sugan yihiin ururka Daacish ayaa waxay ka dagaalantaa buuraha Goolis iyo calmiskaad ee dhaca gobolka Bari ee maamulkaasi Puntland iyagoo halkaasi ay dagaalo ku wajahaan ciidamada maamulka Puntland
hase ahaatee Puntland ayaa dhinaceeda iyada waxa ay la daalaa-dhacaysaa iyadoo taakulo iyo sidoo kale taageero ka helayso ciidamada iyo sidoo kale duqeymo ay geystaan Imaaraadka Carabta iyo Mareykanka kuwaas oo ka saacido duqeymo ba'an oo ay u geystaan ciidamada Daacish ee ku sugan ama ku dhuumaaleysanaya buurahaasi Calmiskaad. si kastaba ahaatee dagaal xoogan ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay Puntland ku dhexmarayay buurahaasi Calmiskaad iyadoo ugu dambeyn deegaano badan oo dhaca buurahaasi Calmiskaad ay Puntland gacanta la wareegtay. Daawada dhinaca kalena weli waxaa ku sugan ururka Al-Shabaab degmada Aboorey ee dhacda webiga Shabeelle sidoo kalena gobolka Hiiraan ayaa mar kale waxa ay ururka Al-Shabaab gacanta u gashay isbuucii la soo dhaafay iyadoo lagu dagaalamay muddo gaarayso 10 maalmood ayaa ugu dambeyn waxa ay hantiday magaalada gacan ku hayntaasi ee dhacda webiga Shabeelle ururka Al-Shabaab iyagoo halkaasina ay gabi ahaanba macawisleedii iyo kuwii kale ee dawladda federaalka Soomaaliya ee ku sugnaa Aboorey ay isaga ruqaansadeen dhinaca iyo Muqokori sidoo kale magaalada Buloburta iyo halgan ee gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya. dawladda ayaa mar kale waxa ay wadaa guluf colaadeed oo ka dhan ah oo ururka Al-Shabaab ugu saaraysa Aboorey waa xuduuda gobolka Hiiraan iyo sidoo kale Shabeellada Dhexe waxa ay weeraro ba'an sida boorarkii dhawaan lagu soo qaaday aadan yabaal ay ka soo qaadeen ururka Al-Shabaab iyagoo halkaasi inta badan ay tahay magaalo istiraatiiji ah ururka Al-Shabaab ku dagaal galaan sidoo kalena deegaano dhaco Shabeellada Dhexe iyo Hiiraan bay ka weeraraan halkaasina ay mar kale adkaatay in ururka Al-Shabaab ay Aboorey si sahal ah ku lumiyaan ama ay dawladda gacanta u gasho mar kale xoogaga macawisleeda ee ka barbar dagaalama dawladda federaalka Soomaaliya. hase ahaatee bariga gobolka Hiiraan ayaa gabi ahaanba ururka Al-Shabaab inta badan laga xoreeyay marka laga reebo deegaano yaryar oo dhaca webiga Shabeelle kuwaas oo ay weli ururka Al-Shabaab gacantooda ku harsan sida Aboorey oo kale. hase ahaatee dawladda iyo sidoo kale macawisleeda gobolka Hiiraan ayaa la daalaa-dhacaya inay mar kale ururka Al-Shabaab ka saaraan guud ahaanba gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya. daawade halkaas ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamij wareedkeeni haddii ay tahay markii ugu horeysay ee soo booqato janaalka Amiir Suleymaan fadlan waxaan ka codsanaynaa in muuqaalka like saarto janaalka subscribe iyo saar mar kale muuqaalka share gareey aad iyo aad ayaad u mahadsantahay.